maanta waxaa laga joogaa ciidamo guudeys iyo ugandheys oo u imanaya oo dhinkooda u huraya inay Soomaaliya dib u soo celiyaan deeqaysaa waxaa dhinta saraakiishooda waxaa dhinta ciidamadooda waxaa dhinta korneela dhinta iyagoo ujeedadoodu tahay inay ka horayaan cadowgana xisaabsado iyo alqaacida dadka ka horayaan laakiin anaguna ku faa'iidsana way marka laga horeeyo waa inaan taaganahay anaguna ku taaganahay maaha marka laga horeeyo inaan sarraadsanayno maaha waa inaan diyaarsana ninkan fulay waa fulay wuu soo cararay TNG madaxweynihii markaas soo doortay iyo barnaamijkii wuu soo cararay wuu qadaraya waxay soo gaartay ilaa Djibouti soo tago oo 235 xildhibaan lagu daro 235 kale oo laga dhigo 500 farmaajo sida dadka waan ka baraya farmaajo farmaajo waxaa lagu soo doortay Sheekh Shariif khilaafkii hadda waa bilaaway waa jiitagay ilaa waxaan ku soo jirnay 10 sano oo khilaaf ah dowladdii TNG-da TFG-da hadda marka fursadaan haysato adduunkii in wax nalala qabtaa la rabaa markii la yidhi inkastoo aan wax qabanay oo aan shaqeynay waxaan yidhi si xal loo helo khilaafka taagan waa inuu ra-iisul wasaaruhu baxo waxaan oran karin ma yaqin maayo si dhibaatada u socoto waxaan meeshaan kuma imaanin haddii aan wax problem tahay waa ka bixi karaa dhibaata ku jirto idinka la sheegay dhan waa kuwana haddii khilaafka uu bato ciidankeenu kama shaqeynaa Soomaaliya waa inaan isaga baxno marka Mr. Mohamed adiga intaasaa geerayso let's go no haddii khilaafku socdo